بسم الله الرحمن الرحيم بيدبو ديسمبر 2022 ورمرتيد قبسوميدا شركة دبوشيسينتا كوفر قلبي سوماليا بيدبو وتشيادي شركة دبوشيسينتا كوفر قلبيت وكباقي قدوميها قولها الشعب كمدن شيخ آدم محمد نور شيخ آدم مدوبي oo maalmahan ka socday magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo ayaa la soo gabagabeeyay gudoomiyaha golaha shacabka ayaa soo saaray baaq dib u heshiisiin 19 bishii November 2022 markii uu arkay xaaladda adag ee uu marayo dalka gaar ahaan Koonfur Galbeed wuxuu soo jeediyay in la qabto shir dib u heshiisiin laguna qabto magaalada Baydhabo sidoo kale waxa soo dhaweeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya 12 bishii December wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka oo ka koobnaa xildhibaanada dawladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed iyo aqoon-yahano ayaa gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol si ay uga bilaabaan geediga wada tashiga shirka dib u heshiisiinta 12 bisha December wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka oo ka koobnaa xildhibaano federaal ah oo deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed iyo aqoon-yahano ayaa gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol si ay uga bilaabaan geediga wada tashiga shirka dib u heshiisiinta ugu horreyn gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxay la kulmeen maamulka heer gobol iyo heer degmo odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada qaybahooda kala duwan waxay aad u soo dhaweeyeen dadaalada uu wada gudoomiyaha uguna jiro qabsoomidda shirweynaha dib u heshiisiinta ah ee ka dhici doona magaalada Baydhabo 14 bisha December gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxay soo gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo halka loogu madlan yahay in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta ugu horreyn gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxay la kulmeen madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziz Xasan Maxamed Lafta Gareen isagoo soo dhaweeyay dadaalada dib u heshiisiinta ah ee uu wado gudoomiyaha golaha shacabka intii uu ku sugnaa gudoomiyaha golaha shacabka magaalada Baydhabo wuxuu la kulmay odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka iyo laamaha ammaanka qaybahooda kala duwan sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa soo dhaweeyay qabashada shirweynaha dib u heshiisiinta waxayna ku baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto shirka gunaanadkii kulumadii uu la yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdicaziz Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxay isla qaateen in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha culimaawidiinka ganacsatada dhalinyarada iyo haweenka si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuud ka yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqeynta hay'adaha dawladda ee labada heer federaal iyo heer dawlad goboleed si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool ahna si loogu xoreeyo dalka kooxaha qawaarijta 3 in laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotonta kalsooni midnimo sareynta dastuurka iyo xeerarka dalka 4 in sida ugu dhaqsiyaha badan gudoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddi heer farsamo oo ka shaqeeya dardalgelinta shirka arrimaha dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed furitaanka shirka waxaa loo asteeyay 5 bisha Janaayo 2023 kaas oo ka dhici doona magaalada Baydhabo 6 gudoomiyaha golaha shacabka أنا كسمة مدحونا جمهورية فدرالكا أيها كم هذعليي سودوين تي ديرانات أو سميي مدحدا إيو شعب كوفر قلبات تضبط وحق دوميها إيو قراء إيو مدحونا دولة قبلات كوفر قلبات يسكنها عين إلا سود دايو دمان معبيستا وحيران أرماها السياسة دا
ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waana la soo daayay waa maasantiin wabillahi tawfiiq